السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتين يوتيوب كوحرن باركا 252 جمعة وناكسن waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub kaga hadli doono wararkii u dambeeyay naadiga kooxda kubadda cagta Barcelona. Haddaa janaalka Barca 252 ku cusub tahay subscribe saare si kusoo gaaraan muuqaalada soo socda. Muuqaalkan share dhaha mahadsanidin. Aniga waxaan ahay Cabdirasaaq. Kusoo dhawaada barnaamijkeena Saakay. Leo Messi oo joojiyay qandaraaskiisa Barcelona isla markaan uu doonayo inuu baxo xilli ciyaareedka soo socda. Waxaa sidaas qortay Sir Messi ayaa doonayo inuu ka tago Barcelona sanadka 2021 isla markaana wuxuu joojiyay qandaraaskiisa cusub oo la gali doono kooxda Catalonia sida ay qortay Sir. Warbixinta ayaa sheegaysa in Messi uu dareemayo daal isla markaana uu doonayo inuu qandaraaskiisa dhameeyo 21 isla markaana kooxda ka tago dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda. Messi oo 33 sano jir ah waa goolyaha ugu sareeya kooxda Barcelona isagoo dhaliyay 700 oo gool oo ku qaaday mustaqbalkiisa ciyaareed halka uu 70 gool u dhaliyay xulka Argentina. Qodobkeena dooda Saakay wuxuu noqon doonaa ma laga yaabaa Leo Messi inuu ka tago kooxda kubadda cagta Barcelona sida idin soo sheegay warbixinta aad ku maqasheen xilli ciyaareedka 21 ama Barcelona wuu sii joogi doonaa heshiis ayay ka saxiixan doontaa kooxda kubadda cagta Barcelona. Aragtidaada waa muhiim taageere fikradaada wixii kula tahay kasoo dhiibo. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.